buugga maadaama uu ku salaysan yahay xamar iyo dad dhalinyaro oo xamar jadiid degan waa in hadalkii halkaas magaalada xaafadaas looga hadlayay uu ahaado. waxaan rabaa inaan Zakaria aan su'aal ka kooban ku weydiiyo sida ay maaragtay si dadka ay fikrad fiican ay ugu qaataan buuggan buujin marka su'aasha koowaad bal waxaan nooga sheekaysaa buuggaani intee in leeg kugu qaadatay inaad qortid maaragtay mana jiraan caqabado aad kala kulantay buugga 300 iyo dheeraad oo buug ka kooban yahay bal marka si kooban waxaan nooga sheekaysaa intee in leeg kugu qaadatay buugga inaad qortid iyo caqabadihii aad la kulantay markii aad buugga qoraysay. بسم الله marka hore waxaan jeclahay horta inaan u mahad celiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha qaarkood waliba aan ogahay inay meel fog ka yimaadeen oo hotelkan aad u adag la yimaado ay yimaadeen waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo madaxda maartay ugu sharaftay inay meesha yimaadaan dhammaantiin aad u mahadsantihiin haddaan su'aasha u soo laabto buugga horta qoritaankiisa wuxuu qaatay muddo 8 bilood ah taasna waxay ahayd ku talagal sababtoo ah buugga markuu hore soo baxay wuxuu ahaa serialized wuxuu ahaa buug qamiis walba soo baxo oo dadku akhristaan oo aad ugu tixnaayeen sidaas daraadeedna waa intii uu socon karay socday qamiis walba maadaama uu soo baxay ujeedada saas aan u sameeyay waxay ku talagal marka koowaad waxay iga caawinaysay inaan ku qasbanaado inaan buugga aan joojin oo qoro oo dhameystiro waxa xasuustaa anoo safar oo baawar saarno garow u socdo inaan gaari ku dhex qorayay waxa xasuustaa anoo diyaarad saarno meel fog u socdo inaan qorayay marka taas oo dhan waxay u qasbaysay in maaragtay liga sugaayo oo dad badan ay ku xirnaayeen oo gruubyo ay lahaayeen oo ay markii 9 saac la gaaro qamiis walba ay la soo hadlayeen oo buugii qaybtii aaway ay ku hayeen marka taas ayaa iga caawisay marka 8 bilood oo qaatay laakiin waxa qoritaanka igala dhib badnaaday waxay ahayd tiftirida editingka sababtoo ah Soomaaliya saan ognahay malahan standard hadeertan isku raacsan yahay oo si uu u qoran yahay oo maaragtay la dhigi karo saasa erey walba loo qoraa waa in qof walba siduu jecel yahay uu qoro waxa laga yaabaa erey ila saxnaa inuu mar dambe dib igala qaldamaado waxa laga yaabaa mataqaanaa kuwa badan maadaama aanan inta software isticmaalo spell check aan fiirsho aanan hal mar wada sixi karin waa inaan erey walba kor istaago oo mid walba aniga aan ansaxo marka taasna waxay keentay in maaragtay uu muddo dheer u qaato inaan maaragtay editingkii u qaato marka taasna waxaan jeclaan lahaa maadaama hadda dawladdeena la joogto in maaragtay lagu dadaalo af Soomaaliga in xoog la saaro si standard sax ah isku raacsan yahay spellingkiisa maaragtay loo sameeyo maasanta caqabadaha waa midaas in maaragtay editingkiisa oo dhibkaas leeyahay waata aad ma santahay su'aasha kale ku weydiinaya Zakaria waxay tahay buuggaani waa novel waa fiction ama waa malaawal waxaan ogtahay dhaqankeena oo maaragtay wax qorista aad iyo aad ugu yar yihiin buugaagta novelka ah ama maaragtay malaawalka ah marka si kooban bal uga sheekay muhiimadda ay leeyihiin novelistka ama sheekooyinka malaawalka ah iyo adiga hadii ay jirto sabab gaar ah oo kugu qaada buug inaad qortid shaakir waa maasan tahay horta buugta novelada ah aad ay ugu yar yihiin waxaan maleynayaa hadii hadda qof walba Soomaali yiraahdo buugta novelka taqaanid sheeg waxa laga yaabaa inaysan 6 xabo 3 xabo 4 xabo is dhaafin karin midaasna waa cilad weyn oo jirta novelada aad ay muhiim yihiin waxa la yiraahdaa noveladu qoraalkoodu waa wax malaawal oo markaas la sameeyay oo fiction ah laakiin run rabo in lagu iftiimiyo waxa la qoraayo waa wax dhici karay oo la maaragtay dadka la tusinayo waa muraayad bulshadu ay isku fiiriyaan oo wixii ka qaldamay oo dhan hadaysan ku dhiiraneen ama maaragtay isku baraarugsaneen la rabo inay maaragtay inta arkaan ay dib isku saxaan muhiimadaas uu leeyahay waxaan jeclahay markii la weydiiyo waa muhiimadda ay leedahay novel waa maxay inaan marba soo qaato oraah uu leeyahay Allah naxariistay qoraageena weynaa Maxamed Daahir Afrax oo soo koobay muhiimadda noveladu ay leeyihiin wuxuu yiri fanka iyo suugaanta oo noveladu ka mid yihiin waa halbowlaha dhaqanka ruuxiga ah waa sumad shacab kasta looga dhex garto shucuubta kale lagu shaki bixiyo jiritaankiisa lagu aqoonsado shakhsiyadiisa iskeed u taagan laga dhex eego taariikhdiisa inta ay qotan tahay lagu sinji sooco dunta uu ka samaysan yahay qaabkii uu fikiri jiray iyo habnoleedkii uu fikiri jiray markii novel Soomaaliya akhrisatid dadkaas waxay yihiin waxay noqonaysaa wax ku cadaanayaan dhaqankooda waxay jecel yihiin waxay xiiseeyaan waxyaabaha muhiimka ah halkaas ka soo dhex maaragtay ka soo dhex saaraysa mid kale noveladu muhiimka ah waxay tahay masawirada waa naqaanaa markii masawir la qaado xilligeedii iyo meesha ay tahay waa la fahmi karaa novelku laakiin waa snapshot waa masawirkaas laakiin oo qoran
marka akhrisato buuggan markaa maanta furto oo akhrinayso waxaa la rabaa inaad dhex tagto muqdisho iyo 2000 sidii ahaan jirtay iyo basaskii la raaci jiray iyo jidadkii la mari jiray iyo wixii taagnaa iyo magaalada si kala xirxirneed iyo wax walba waa inaad markaas halkaas dhex tagto taas marka waxay noqonaysaa musawir qoran muhiimadaasna waa leedahay waxay kaloo leedahay ka soo qaado kale maanta haddii aan la yiraahdo magaalada xamar wax ka qor oo research caadi aan sameynayo maadaama aan aqaano waan factski inaan raadsho oon researchkayga dhex galo aan ka bilaabay isla markiiba laakiin qofka aan u dhalan xamar waa inuu novel soo akhriyo xilligaas uu research ku sameynayo ku saabsan si uu u helo background mataqaana informationkaas oo maarta ku saabsan magaalada marka taasna muhiim gooni yahay isaas u leedahay marka novelada waa wax aad u fiican oon ku dhiirinayo qof kastoo maarta wax qori karo inuu isku dayo inuu qoro waa maasantahay waa tahay aad maasan tahay inkasta oo Zikriyo aad ka sheekaysay caqabadaha haddana waxaan rabaa inaad si gaar ah ugu sheekaysid caqabadaha la xiriira daabacadda waxaa ogsoon tahay meelaha ama goobaha wax lagu daabaco dalka waa iska kooban yihiin maadaama wax soo saarka buugaagtuba ay si guud ay dalka ugu yihiin marka bal haddii ay jiraan qodobo aad dul istaagi kartid oo ku saabsan caqabada aad kala kulantay daabacadda waa aad u mahadsantahay Shaakir daabacadda dhibaato weyn ka taagan sababtoo ah sidaan la socono markii wax la daabacayo qofka qoraaga ah inuu qoro kaliya ku egyahay waa laga edit kareeyaa waa lagu soo celiyaa waa loo daabacaa waa loo bandhigaa waa loo iibiyaa wax walba loo sameeyaa laakiin annaga maadaama waxaas oo dhan aysan jirin oo publishing houses hadda dhammaystiran aysan jirin waxaan ku qasbannahay wax walba in aniga isku noqdo in anigii qoray anigii tiftiray anigii qarashkii ku baxshay lagu daabacayay anigii soo bandhigo anigii dadkii maaragtay baro marka taasna waa dhibaato taagan waxaan jeclaan lahayn maaragtay waana suuq furan waa ogahay Soomaalidu markii ganacsi la sameeyo isku daydaydo marka balkan al saga daydo hadii lahayd suuqyo badan oo hal la helo in publishing houses badan oo maaragtay buugta dadka u daabaco oo ku dhiirigeliyo buug quality leh oo tayadooda muhiim tahana maaragtay laga shaqeeyo oo dad badan waxa jiro aanan qori karin kaliya dhibkaas ka sokay kaliya laakiin talentigii wax qorista wali haya marka waxaan rajeynayaa insha Allah taala in maartay laga bixi doono maasanta aan imaano dhanka waxtarka ama maaragtay buugani waxa uu soo kordhi karo dad far badan waxay ogsoon yihiin oo akhriska iyo qoraalka jecel ama akhriska sheekooyinka jecel haddaatan hadalkaaga bilowga ku jirtay sheekooyinka Soomaaliga ah oo caanka ah ama magac leh waa far ku tiris waaye marka waa wax maaragtay faraha lagu tiri karo sheekooyinkaasi waa lagu soo caanamaalay maaragtay dad far badan oo Soomaaliya akhristeen qaarkood waxaa laga yaabaa in idaacadaha laga sii deey jiray oo maaragtay si oo taxano ah magacay yeesheen dadkay dhex galeen buujin markaa u imaano oo dabcan xajmigiisa markaan fiirino buug weyn ah oo la heer ah buugaagta noveliska maaragtay caalamiga la heer ah 300 oo page waaye waa maxay rajada aad ka qabtid ama qaaraanka is leedahay uu ku darsan karaa maktabadda Soomaaliga afka dhaqanka iyo guud ahaan maaragtay sectorka oo sheekooyinka Soomaalida waa gartay horta buugan waxaan jeclahay marka koowaad in haddii la helo hal qof kaliya uu maantay uu ku dhiirigeliyo inuu wax qoro waa faa'iido weyn luqadda Soomaaliga waxaan ognahay horta in maaragtay heer ay dhimato ma gaarin luqadda adduunka ognahay luqadda maalba idaacadaha waxaan ku aragnaa qofkii u dambeeyay oo ku hadli jiray oo dhintay kadibna luqadii oo dhan ay meesha ay ka baxday luqadda Soomaaliga dadku ku hadla ma yaro oo ma dhiman doono laakiin xanuunkii uu ku bilowday sababtoo ah xilligan soo marno oo dawlad la'aanta nidaam la'aanta ay jirtay ma jirin af Soomaaliga in la kubciyay ma jirin buugaag badan oo lagu qoray oo dawladdu ay ka shaqeysay ma jirin manhajtii oo iskuulada oo af Soomaali lagu baranayay oo maartay luqadii saas u qurxinay ma jirin marka luqadii waa aad u daciif u noqotay marka haddii marka buugan maanta oo hal qof kaliya hataa uu ku dhiirigeliyo inuu wax qoro waxaan isleeyahay taas waxay noqonaysaa qaaraan fiican midda kale aan jeclahay maartay inaan ku daro waxa kamid ah af Soomaaliga waa saadaay hor u sheegay aad u kala firdhisan yahay gobol kasta iyo deegaan kastaba waxa looga hadlaa wax gooni ah marka kan hadii maanta qof akhristo waxa laga yaabaa in wax badan ka barto oo ku cusub af Soomaalihan oo maartay ay ku cusub tahay waxa laga yaabaa qof kale haduu meel kale uu joogo akhriyo asaga dhan yaqaan oo la sahlanaado marka waxaan rajaynaynaa inuu taasna uu ku soo kordhiyo afkii Soomaaliga iyo deegaanka uu ku saabsan yahay inuu wax ku soo kordhiyo lahjada Soomaaliya ka sheekaysay Zikriya iyo maaragtay iyo af Soomaaliga inuusan fadhin
inkastoo aanan rabin inaan uga sii sheekeeyo dadka buugga haddana lahjad gaar ah oo loogu tegi doono buugga ma jirto mise maaragtay af Soomaali dhexdhexaad oo qof kasta fahmi karo ku qoray maya lahjad gooni ma jirto macnaha buugga maadaama uu ku salaysan yahay xamar iyo dad dhalinyaro oo xamar jadiid degan waa in hadalkii halkaas magaalada xaafadaas looga hadlayay uu ahaado haddii kale wuxuu noqonayaa wax maaragtay iska been ah waa in noveladu waa aadkana waa inuu mar walba ka turjumo waxa uu markaas ku saabsan yahay waxaa qof haddii aad aragtid af Soomaali jaban uu ku dhex jiro kale macnaha maaha in maaragtay uu qaldamay maaha waa ku talagal qofka characterkaas asaas u hadli jiray ah macnaha marka luqad uu ku qoran yahay waa luqadda xamar iska dhexdhexaada waxaan jeclaa qof walba inuu sahal u fahmi doono insha Allah aan u maana marka buugga aan soo daadegno waxaa ogsoonahay sheeko kasto meelay ka bilaabataa ama waxaa jira waxyaabo sal u ah marka iyadoo ay sheeko tahay bal nooga sheekay waa maxay sheekada oo sheekada boojin lafteeda maxaa sal u ah macna xagee ka bilaabataa waa maxay dhimbishii koowaad oo sababtay ina sheekadaani maaragtay ama inspirationka wixii maaragtay kugu dhiirigeliyay ama meeshii ilhaamka ka heshay bal meeshii ka soo askunto sheekadan bal nala wadaag aad u mahadsan tahay horta buugga karakterada uu ku salaysan yahay waa dad run ah oo jiro qaarkood maalin walba isoo waxaan yidhahdaan qofkaas ma aniga ana ku inkiraa ma rabo in maaragtay ay leexiso laakiin saldhigiisa waa dad run ah meelaha uu ku salaysan yahay waa dad run ah bilowga hore oo introductionka ilaa iyo chapterka ugu horeeyo kale waa wax dhacay run ah marka intaas markii ay fadhiisato way sahlan tahay inta kale in maaragtay fictionalize laga dhigo marka waqti inta badan moogtahay waa adag tahay in la curiyo laakiin mar haddii saldhigaaga uu wax sax iyo dad sax ku salaysan yahay ayaga ku hagayo qofka dabeecadiisa taqaana dhaqankiisa taqaana wax ka suurooba taqaana marka waxay noqonaysaa wax maaragtay qoraalkiisii uu noqonayo wax jiha leh oo maaragtay marka saldhigiisii waa kaasa sheekadana waa sheeko maaragtay iska malawaal ah laakiin saldhigeedu uu run yahay Zakariya waxaa og tahay hadda qoraha tahay sheeko malawaal qortay fanka iyo maaragtay iyo suugaantana waa qaybo kala duwan laakiin waa isleeyihiin filimada laftooda oo aad og tahay dalkeena maaragtay wax soo saarka filimada inay aad iyo aad u yar yihiin sheekada maadaama ay sheeko weyn tahay oo ay jiraan filimo caan ah oo laakiin bilowgooda hore ahaayeen sheekooyin ma isleedahay maadaama hadda qalabka Soomaalida ay adeegsato iyo wax soo saarkooda filimada uu bilow fiican marayo maalmaha kamid ah waqti dhow ama waqti dheer inay dhici karto maaragtay in boojin loo bedelo film ama musalsal horta wallahi taas aniga uma xirna dadka maaragtay barnaamijyada sameeyo siday u soo danayaan ku xiran tahay laakiin sida ognahay wax kasta oo la daawado waa wax marka hore qornaa ayaka la bedelaa ayaka maaragtay screen right lagu sameeyaa oo loo adapt gareeyaa maaragtay in television laga dhigo sababtoo ah sida uu qoran yahay looma jeli karo marka qofka sheekada markii ay haddii laga helo oo dadka dhan ay rabaan in film looga dhigo waxay u baahnaanaysaa markaas in dib maaragtay loo adapt gareeyo oo screenkii loogu diyaariyo marka taas marka insha Allah bal aniga waa wax aniga maaragtay hadda maaragtay gacanteeda ku xiran maahan laakiin waa soo dhaweynaa cid u baahan laakiin adiga waa goshahay waa tahay su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiiyo shaqo weyn aa qabatay wax soo saar weyn waaye bug intaan la eg oo aa maskaxdaada ka tuujisay oo marka laga soo tago shakhsiyaadka waaweynka oo sheekada maahan inta kale dabcan mal awaalkaaga aa kusii xoojisay yaa waaye dadka oo abaalka ugu hayso shaqo oo weyn oo intaan la eg inaad qabatid dadka ugu soo horeeyo oo abaal ugu haysa yaa waaye bilow ilaa dhammaad aad u mahadsan tahay horta dadka abaalka ay tirada ka bateen waa buugana ku qoran yihiin laakiin haddaan soo koobo marka koowaad waxaan dhihi karaa waxaa abaal weyn aan u hayaa xaaskayga oo caawa nala joogta oo maaragtay la-aanteed maaragtay buuggan uusan shaqayn lahayn sababtoo ah moogtahay shaqo badan oo ii taalaan computer ku foorari oo buugga maaragtay qorayay marka dulqaadkeedii darteed buuggan caawa ku hesheen marka ayada way mahadsantahay koow marka labaad waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo aabahay asna oo nala jooga Ismaan Maxamed
oo maaragtay qof maaragtay waxbarashada aad ay ula weyn tahay oo maaragtay intaas uuna buushgareynayo waxbarashada lagu qasbay darteed haddaan waxba baran lahayn wax la qora maaragtay ma jireen waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo macalinkaygii maaragtay koowaad oo ta ii qoray oo ah ninkan nala fadhiya sanadka wasiir Bukhari oo ABC bilaabay asaga hadduusan maaragtay markaas ii bilaabi lahayna maaragtay ma aqaano si wax noqon lahaayeen markaasna aad u mahadsan yahay waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo macalinkayga kale oo la yiraahdo Cabdicasiis Cabdullaahi Yuusuf Kulu loo yaqaano oo farta si fiican noo baray oo qoraalka aad maaragtay noogu dhiiriyay in si qurxoon wax loo qoro inay muhiim tahay oo qaladka in la iska ilaaliyo ay muhiim tahay oo wax qurxoon marka dad wax tusayso ay qurxoon tahay muhiim tahay aad ilaa haddana wixii uu na baray iyo sidii uu noo soo ababiyay ilaa haddeertan ay saameyn ay nagu leedahay aad u mahadsan yahay waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo hooyaday oo ayada laftirkeeda caawa nala joogta oo maaragtay aan isleeyahay waa ka dhaxashaba maaragtay in la sheekeeyaba oo maaragtay af Soomaaliga aad u xiisaysa oo maaragtay aad noogu sheekeyn jirta markaan yareereyn maaragtay on aad u xiiseyn jiray sheekadeeda markay noo bilowday inay noo dhameyso ay dhigi jirtay maaragtay hadii cuntada la cunin sheekada ma la dhameynayo qofkii seexdo oo shaqadiisa ka soo baxaa maaragtay berri sheekadii loo dhameystir doonaa marka jaceylka sheeko aan u qabo oo novel in la qoro ayadana maaragtay ayada number 1 ka aan dhigi karaa ayadana aad u mahadsantahay marka intaasan jeclahay inaan kusoo koobo laakiin markii kale waa buugay ku qoran yihiin aad u badan yihiin dadka kale qaar badan nala joogo waxaa ka mid ah wasiir dhagax oo kale inta fadhiyo oo ahaa ninkii aan ku qori jiray website-kiisa markii uu taxana ahaa sheekada oo maaragtay igu dhiiriyay in aan bilaababa asagana aad u mahadsan yahay Zakariya aad iyo aad u mahadsantahay shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekadda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah